waxa ay ku naanaysan haweenaydii birta ahayd waxa ayna ugu yeeraan maama ama hooyo waxa ay ku barbaartay dhabarka dambe ee derbi la yidhaahdo Berlin kadibna waxa ay dumisay dhammaan derbiyadii laga bilaabo laguna dhammeeyo Jarmalka si ay wadankeeda uga dhigto isha ay ka soo burqadaan badeecadaha ama qalabka warshadaha albaabadana ugu furto milyan iyo bar qaxooti ah waa aqoon-yahanada cilmiga chemistry-ga taas oo aad ugu hormartay isu dhiganta siyaasadda iyo dhaqaalaha si ay Jarmalka uga dhigto hogaamiyaha Yurub ee dhaqaalaha iyo dhaqanka haddaba waa tuma Angela Merkel sideese u bedeshay qaab dhismeedka Jarmalka Yurub lagana yaaba adduunka Angela Kastner waxa ay ku dhalatay Jarmalka galbeed sanadkii 1954 hayeeshee waxa ay ku barbaartay Jarmalka bari oo xilligaas uu xukumayay midowgii Soofiyeed ee hanti wadaagu kadib markii qoyskeedu u hayaamay halkaas Merkel waxa ay ku weynaan doontaa dhulka dawlad looga adkaaday dagaal caalami ah taas oo dhaqaalaheedu dhulka galay juqraafi ahaanna kala qaybsan xaaladda iyo duruufta jirta ayaa Angela Merkel ka hor istaagi doonta riyadeedii ahayd inay noqoto macallimad siyaasaduse guud ahaanba maankeeda kuma jirin adduun uu xukumo nidaamka hanti wadaagu haddii aabbahaa yahay nin diineed wax badan waa lagu diidi doonaa waxa ay baratay cilmiga fiisigiska waxa ayna guursatay wadaygeedii Ulrich Merkel waxa ay shahaadada PhD ku qaadatay cilmiga chemistry-ga sanadkii 1978 sanadkii 1982 waxa ay kala tageen ninkeedii ilaa sanadkii 1989 ayay ku shaqaysay qabiir kiimikada ah waxa ay ku jirtay nolol caadi ah waxbarasho shaqo guur iyo kala tag hayeeshee waxba dhici doona waxa ay bedeli doonaan Jarmalka waxa ayna waxaasi u gogol xaari doonaan in Angela noqoto hogaamisada ama hogaamiyaha qaaradda gabowday Mr. Gorbachev mudane Gorbachev dumi derbigan In meinem eigenen Leben war es der Fall der Berliner Mauer. Duminta derbigii Berlin 30 sano ka hor ayay isiisay fursad aan adduunka ugu tallaabo waa dumay derbigii Berlin waxaana la dumay dhammaan derbiyadii ka hor gudbanaa Merkel waxaana yimid waqtigeedii si ay u gasho caalamka siyaasadda waliba Jarmalka oo midaysan Was festgefügt und unveränderlich scheint. wax waliba waxay u muuqdaan in dhagax lagu aslay waxaana suurtagal ah sida jirta inay isku bedelaan haweenaydii iska timid iyada oo leh oo kali ah sooyaal aqooneed waxa ay ku biirtay xisbiga masiixiga dimuqraadiga ah sanadkii 1989 sanadkii 1990kiina waxa loo magacaabay kusimaha xogayaha saxaafadda ee xukuumadda Luther waxa ayna gashay baarlamaanka doorashooyinkii ugu horeeyay ee xeerdajinta kadib midowga waxa ay noqotay wasiirka haweenka iyo dhalinyarada kadibna wasiirka bii'adda iyo badqabka waxa ay guursatay Joaquin Saro sanadkii 1998 balse waxa ay sii haysatay naanaysta ninkeedii hore sanadkii 2000 waxa ay noqotay hogaamiyaha xisbiga CDU sanadkii 2005 waxa ay noqotay la talisadii ugu horeysay taariikhda Jarmalka iyo muwaadinadii ugu horeysay ee Jarmalka bari ee hogaamisay dalka kadib midowgii labada Jarmal sanadkii 2009 dib ayaa loo doortay 2013 ayaa dib loo doortay haddana 2017 ayaa dib loo doortay afar xilli madaxeed ayay qaadatay haweenaydii ugu horeysay ee xukunta Jarmalka waxaana haweenaydaas u suura gashay inay 8 mar xagga sare ka gasho liiska Forbes ee haweenka ugu awoodda badan adduunka Mama Merkel inkasta oo aanay carruur dhalin haddana waxa ay xaalad gaar ahaaneed ka ciyaartay isla markaana siisay muhiimad gooni ah dhinaca haweenka carruurta iyo qoysaska xitaa haddii ay arrintu u baahato in fasax dhalmo la siiyo nin haa waa la ogol yahay arrinkaas si ay kugu dhiirigeliso inaad carruur badan dhasho oo ah wax aanan u baahnayn ku dhiirigelintiisa marka la joogo caalamkeenna carbeed xukuumadda Jarmalku waxa ay go'aamisay qaadashada fasax dhalmo oo weliba lacag lagu siinayo muddo 14 bil ah labada waalidba hayeeshee wixii hore oo dhan waxa ka sii muhiimsan guulaheeda ee gaartay ee dhaqaalaha waxa ay jebisay nidaamkii hanti wadaagga ee ay ku soo barbaartay waxa ay dejisay markii ugu horeysay xadka ugu hooseeya ee mushaarka iyada oo ka dhigtay 8 euro iyo bar saacadii waana taas arrinta caawisay qaybta bari ee wadanka oo la kufaakacaysay saboolnimo Angela waxa ay dhamaystirtay horumarka dhaqaalaha Jarmalka oo bilowday laga soo bilaabay xilligii dib u midowga labada Jarmal sanadkii 1990kii dhaqaalaha wadanka ayaa noqday xilli madaxeedkeeda kan ugu horeeya qaaradda Yurub iyo dhaqaalaha afaraad ee adduunka oo dhan marka laga tago Japan Shiinaha iyo Mareykanka shaqa la'aanta ama bagamuudada waxa ay ka riixday 12.9% sanadkii 2005 iyada oo hoos ugu dhigtay lama dhaafan gaaray 4.9% oo kaliya ah sanadkii 2018 waxa jirtay fadhiidnimo dhinaca miisaaniyadda ah oo ahayd 3.5% markii ay talada qabatay Merkel fadhiidnimadaasi waxa ay isu rogtay kor u kac lagu qiyaasay 3%
lacagta dheeriga ah iyo xisaabta socota waxa ay gaartay sannadkii 2005 halka ay kor ugu kacday 8% sannadkii 2018 dhammaan guulahaas iyo kuwo kale ayaa gaarsiiyey dadka Jarmalka inay ku magacaabaan hooyo haddaba naanaystan caanka ah ayay u bixiyeen dadka Jarmalku Merkel ka hor sanado intii aanay Suuriyiintu ugu yeedhin in badan waxa ay warbaahintu qaadqaaday warkeeda kuna sheegtay inay tahay shakhsiyad naxariista iyo caadifadu ku badan yihiin ha yeeshee deganaanshaheeda dhab ahaan waxaa ka dambeeya nuuc ka duwan sidaas waxa ay baabi'isay siyaasaddii askaraynta qasabka ah sannadkii 2011 kadib 50 sano oo ay waajib ahayd siyaasadda askaraynta qasabku iyada oo tallaabadaas kala kulantay mucaarad badan arrinkaasina waxa uu ku jiray qorshaheeda ciidanka xoogga dalka Jarmalka loogu rogayo ciidan xirfadyahan ah oo ka kooban 170,000 oo askari halkii uu ka ahaa xilligii siyaasadda askaraynta qasabka ah 250,000 oo askari waxa ay lahayd dhiiranaan iyo ku dhac ku filan si ay irdaha isugu dhufato ama u xirto 10 xarun oo laga dhaliyo awoodda korontada ama leyrka waliba si degdeg ah kadib musiibadii ka dhalatay xaruntii awoodda nukliyeerka Japan ee Fukushima sanadkii 2011 waxa ay shaacisay inay ka go'an tahay xiridda dhammaan xarumaha awoodda nukliyeerka ee Jarmalka horraanta sanadka 2022 waa go'aan aad u dhiiran oo ka dhigan in Jarmalku raadsado ila uu ka helo awoodda korontada oo bedela xarumaha nukliyeerka arrinkaasina waa kan sida weyn u hirgelay sanadkii 2017 wuxuu dhigma 85% guud ahaan awoodda korontada ama leyrka ee Jarmalka waxaa suura gashay in laga dhaliyo dabaysha awoodda qorraxda awoodda dhirta iyo xayawaanka iyo awoodda biyaha habka awoodda korontada ama leyrka ee waddankeenu waa inuu si dhab ah oo gun iyo baar ah isku bedelo waana awoodnaa in aan bedelno awooddayda oo dhan waxaan ku bixinayaa si waddankayga Jarmalka uu u gaaro sanadka 2050 qodobka dhexdhexaadnimada cimilada المرأة الحديدية رائدة أوروبا Merkel waxa ay jabisay nidaamkii hanti wadaagga mar Hitlerna waxa ay jabisay mar iyo dhowr mar oo kale kuma aanay ciyaarin qof qowmiyad aragti iyo qabiil midna ha yeeshee waxa u suura gashay inay ka dhigto Jarmalka awood weyn oo ka tirsan qaaradda gabowday markii ugu horreysay laga soo bilaabo labadii dagaal ee adduunka waliba iyada oo aan hal xabadna ridin oo keli ah waxa ay u martay ku habboonaanta shaqada xilligii hore Hitler waxa uu burburiyay Yurub adduunkana waxa uu weerarka ugu qaaday hirgelinta rabitaankiisa isballaarinta maantana Merkel waxa ay u taagan tahay damaanad qaadka midnimada Yurub xitaa iyada oo Ingiriisku ka baxay midowga Yurub ayna hoos u dhacday kaalintii Faransiisku Angela waxa ay ka dhigta Jarmalka dal weyn oo ku waajibinaya waxa uu doonayo dadka oo dhan iyada oo la adeegsanayo awoodda siyaasadda iyo dhaqaalaha isla markaana laga fogaanayo dhaqanka qowda maqashii waxna u qaban si aan haddaba u garanno muhiimadeeda halkan waa in aad xasuusataa mashaakilkii qabsaday lacagta euro taas oo ku dhawaatay inay dawlado dhan ku riddo godka kicidda ama musallafidda euro waa lacagta ay adeegsadaan inta badan dawladaha Yurub laga soo bilaabo sanadkii 1999kii dawladaha adeegsada lacagtaas waxa lagu magacaabaa gobolka euro ka gadaal dhibaatadii dhaqaale ee caalamiga ahayd ee sanadkii 2008 dawladaha adeegsada lacagta euro waxa ay bilaabeen inay qaataan deyn si ay uga hortagaan fadhiidnimo ku dhacday miisaaniyadooda sidaas awgeed deymihii qaranka ayaa aad u batay isla markaana kordhay mana suura gelin in la bixiyo waxaana soo baxday in dawladaha qaarkood ay deyntoodu ka badatay 60% wax soo saarkooda gudaha dabaysha musallafiddu waxa ay ka soo bilaabatay Griiga waxa ayna ku dhufatay Boortaqiiska Spain Talyaaniga Qubrus Ireland iyo qaar kale oo badan dhibaatadaas dhaqaale waxa lagu tilmaamay xilligaas inay tahay dhaqaale xumadii ugu darnayd ee soo martay qaaradda Yurub laga soo bilaabo dagaalkii labaad ee adduunka waqtigaas su'aasha ugu muhiimsan ee taagneed waxay ahayd yaa xoola haysta si loo caawiyo saaxiibada jawaabtu waxa ay la til hal dawlad oo kali ah Jarmalka waa dawladda u adkaysatay dhibaatadii dhaqaale ee 2008 kaydkeedana ku haysatay lacag badan lacagta euro waa damaanad qaadka midnimada Yurub haddii lacagta euro fashilanto waxay ka dhigan tahay fashilka Yurub Merkel tii jeclayd wax karinta waxa ay si dhammaystiran u fahamtay sida loo diyaariyo isku milanta isku habboon si loo badbaadiyo lacagta euro waxa ay shaacisay inay diyaar u tahay inay bixiso kaalmo balse waxa shardi ah in la soo rogo qorshe gunti isku giijis ballaaran ah dhammaan xukuumadaha ay qusayso taas oo ka dhigan in la yareeyo mushaarka kor loo qaado da'da qaanuun ahaan howlgabka hoos loo dhigo lacagaha dawladdu ku bixiso danta guud iyo in kor loo qaado saacadaha shaqada waxa ay ahaayeen siyaasado ay ogolaan doonaan dawladaha u baahan
baahan caawinta balse ka caraysiin doona dadweynaha kana dhigay magaalooyinka Athens, Lisbon, Roma iyo dhowr caasimadood oo kale barxado furan oo carab buuxisay. Merkel waxaa lagu tilmaamay xilligaas inay astaan u tahay nacaybka iyo adayga. Wargeysyadu waxa ay u ekaysiyeen Hitler oo isku dayaya inuu dhaqaale ahaan qabsado qaaradda Yurub. Waa dhaliilo aan tabardarro ku ridin Merkel isla markaana aan qalqalin, waxaana si la yaab leh u yimid natiijadii qayb ahaan lacagtii Yurub waxa ay ka baxday dhibaatadii dhaqaale, waxaana soo hagaagay dhaqaalaha dawladihii qarka u saarnaa inay dumaan. Arrinkaasina waxa uu ahaa guul la yaab leh oo ay gaartay Merkel, waana sababta ku qaaday dadka Jarmalka inay siiyaan kalsoonidooda inay sii xukunto xilli madaxeed kale sanadkii 2013. عدوة الجدران بلا منازع. haddaba suuragal ma tahay inaad lumiso taageerada xisbigaaga aadna dhinac marto dhammaan isbahaysiyadaada isla markaana aad halis geliso kursiga xukunkaaga si aad u badbaadiso koox qaxooti ah? dhab ahaan waa waxaas waxa ay samaysay Merkel. waxaan isku tiriyey inaan ka mid ahay dadka jecel Merkel. waxaan u haystay inay tahay hogaamiso weyn. waxaan rumaysnahay waxa ay ku samaysay Jarmalku ay yihiin bar madow oo ceeb ah. waa ceeb aan xad lahayn. si ka duwan wixii ka guuxaya maanka adduunka oo dhan oo ahaa siyaasado seeflaboodnimo ah kuwaas oo ka horjeeday soo galootiga iyo qaxootiga, Merkel waxa ay go'aansatay inay dhammaan qaabisho. milyan iyo bar qaxooti ah oo badankooda u dhashay Suuriya ayaa galay Jarmalka iyaga oo maraya siyaasadda albaabka furan, taas oo ay Merkel shaacisay sanadkii 2015 iyada oo wadamada darisku ay diideen siyaasaddaas. bilowgii 33% dadka Jarmalku waxa ay taageersanaayeen siyaasadda Merkel, kadib markii ay dhaceen dhacdooyin dhinaca jinsiga ah oo ay geysteen dad qaxooti ah ayna ugu horraysay dhacdadii xadgudub wadareedka ahayd ee ka dhacday magaalada Cologne ayay hoobatay tirada taageerayaasha siyaasadda Merkel iyada oo gaartay wax ka hooseeya 18%. taageeradeedii shacabka ayaa dib u laabatay waxaana ku soo dhawaaday xiddiga xisbiga Alternative for Germany oo ah xisbi ku tirsan midigta fog. Merkel waxa ay lumisay milyan iyo bar cod oo ka mid ah codadka doorashadii 2017. haddaba maxaa la yeelaa? aan erinna qaxootiga, aan ku adkayno, aan ku qabqabanna jidadka, dibna ugu celinno waddamadoodii burburay sida ay dadka kalaba yeeleen. balse Merkel oo si wanaagsan u taqaana waxa ay samaynayso waxa ay kursiga xukunka ka doorbiday mabaadi'deeda iyo maslaxadda waddankeeda. sanadkii 2018 waxa ay shaacisay inay ka degtay hoggaanka xisbiga ayna sii hayn doonto xilka la taliyaha ilaa sanadka 2021. shaacinta xilka degiddu waxa ay ahayd mid degdeg ah kadib xukun jiray 14 sano. haweenaydani waxa ay hogaamisay Yurub waxa ayna ilaalisay midnimadeeda iyada oo ay talada qabanayeen xisbiyo qowmiyadeed kuwaas oo aan u diyaarsanayn midowga Yurub dhanna aan ka lahayn lacagta euro. Merkel waxa ay ugu dambaysaa difaacayaasha reer galbeed ku dhisan nidaamka liberaaliga sida uu ku tilmaamay wargeyska New York Times. sabab adduunka miyaanay buux dhaafin hogaamiyayaasha xag jirka ah, tusaale ahaan Trumpka Maraykanka iyo Boris Johnsonka Ingiriiska. si fiican u dhigo Allaha ku dhowree. Merkel tii xilli dambe baratay socodka siyaasadda ayaa dhammaan ka hormartay. haweenaydan qunyar socodka ah ee ka fog nolosha barwaaqada waxa ay Jarmalka ka dhigtay hogaamiyaha Yurub muran la'aan. Merkel tii uu wargeyska Times ee Maraykanku ku magacaabay haweenayda ugu awoodda badan adduunka ayaa awood u yeelatay inay jebiso 3 caqabad oo waaweyn oo ku jirtay nolosha siyaasadda Jarmalka. waa aqoon-yahanada ka soo baxday shaybaarka si ay siyaasadda u gasho uguna guulaysato. waa haweenayda hogaamisay waddan iyo xisbi ay raggu caada ahaan ku badan yihiin. waa gabadhii Jarmalka bari ee hanti wadaagga ahaa oo hogaamin doonta qalcadda nidaamka liberaaliga ah ee Yurub. Merkel nolosheeda gaarka ah ayaa ka cabsi badan. uma ogolaato ilaaladeeda in waddooyinka la xiro marka ay kolonyadeedu maraysa jidadka. ma degana guri weyn, mana laha laash iyo xitaa diyaarad gaar ah. balmalay in mid ka mid a hogaamiyaasha ugu xoogga badan adduunka uu degan yahay dhowr qol oo ku taal meel u dhow mid ka mid a madxafyada magaalada Berlin muddo 10 sano ah. ma beddesho kooxda la shaqaysa xilliga fasaxana lama xiriirto. waxa ay wax ka soo iibsataa suuqyada iyo dukaamada ka hor inta aanay ka bixin dukaankana. waxa ay hubisaa qiyaasta ama cabirka kabaha. Merkel waxa ay ka tegaysaa xukunka sanadka 2021. qofna ma oga waxa uu sugayo adduun ay ku sii yaraanayaan dadka Merkel oo kale ah ayna ku sii badanayaan dadka Trump oo kale ah.